moydiba ila soo martee miisaan xaqa lama magi karee minika jannada mawlaha ka dhigo maamoy macaan mawlaha ka dhigo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كده حل هو أتكلم ساعتين براها برشة قيبت يوتيوب كبرنامج وحدن كجي إيمانا يا قاهرة مجال مدح دلك مصر ما تدوي لا كرا النقد وحنسمي سنة عم برباتي ساوجدين مريرو معان وباتي لو قلت القلي قبوبها وحاولت لنا سير وبسيطة وأنا إسلام لنا إن شاء الله بإذن الله الكريم مرض مركز وكلا بحير النعكلات marada markaa kala bixiyo dhinac kale u laabayaa 4 laab aan ka dhigayaa dhinac dherer aan u jarayaa haduu ilaahay karaali noqdo subxaanahu wa ta'ala ya iska horkeenaya kadibna insha Allah hortiina ku jarjarayaa waa toosinayaa waan isku hagaajinayaa si ay kala dheeraanin iyo kala gaabanin oo kulligeed ay u noqoto wax isla ka fiican oo maqaska lagu jari karo la raaci karo si sahlan oo basiid ahna loo sameyn karo insha Allah باذن الله الكريم. maradan siira isku laabaya ma u baahno waxyaabo badan oo laga toosinayo mitir badan ma u baahno waa iska sahal waa iska cambuur kuleeleed oo maaragtay shulq inta isku iska soconayo waan kala reebaya qaybta horan ka goonayo عشان gobolkaas waxa ugu baahanahay inaan maaragtay meelaha laalaabyada u baahan ku laalaabo haduu ilaahay karaala noqdo kadib waa toosinaya kadib gacanta jaraya meesha gacanta ka gali lahayd iyo qoorta kaliya ayaa muhiim ah haduu ilaahay karaal noqdo halta ka gacanteeda ku taakeenaya kadibna waan jarayaa saa ujeedinba markaan jaro bas wax kale tabo loo ma baahnaba qoorta wax yar aan ka bixinayo oo yani micneero maaragtay ilaa shay looga baxayo sinti ilaa shay oo kale taadi wax yar oo maaragtay alashan si qoorta u fariisato camburka markii la xirto ku qurux badnaado hoosna wax laga goynaa ma balahanba waa iswad la egahay dharkan waa baati haduu biyo galo isku soo ururaan intee marada dharkeeda la eg tahay ayaa u dhaafeena insha Allah باذن الله الكريم. intaas waa isla garanay hadda waxaan sameynayaa maryaha yar aan u baahnaa inaan qoorta ku laabo kilkilaha ku laabo gacanta hoosteeda meesha ay soo mareyso meesh maaragtay gacanta hoosteeda imaaneyso wax yar oo mara aan ku laaba diyaarsanaya kaliya waxyaabo badan oo kale oo looga baahan yahay camburkan in la tolo ama maaragtay loo fikiro ma biyalba meesha waska cambur yar oo basiit oo maaragtay xagal kuleeleed ee baatin sidiisa kuleelo dadka anfaca kaliya kuleelaha hadii laga baxo waxa dhaxan oo ku keenamo marka insha Allah gobolkaas mara u diyaariyay saa ujeedinba علشان kilkilaha inaan ku laalaabo insha Allah. haddana waxaa wada diyaarinaynaa garbihii maradan yar oo ubaxyada lahaan soo helay no matter inuu kala nooc yahay iyo inuu isku eg yahay waxba dhibaato ma laha waa sasaneynaya in yaroo mara aan u baahanahay aan ka reebanaya si aan garbaha aan ugu sameeyo oo maaragtay garbis laakiin noqdaan 10 mitir kaliya u baahanahay 10 mitir iyo 10 mitir gacanta square-keeda oo dhanba waa 50 marka camburkan maadaama free size uu yahay waxaan ka dhigayaa adi 60 oo kale taa ka dhigayaa 30 oo maaragtay gacanta labada dhinac ku soo wareegaysanayso 30 waxay noqonayaan adiga waa iska 60 insha Allah باذن الله الكريم marka 60 kaas ku soo wareejinaya gacanta ujeedin xabadka macal gacanta xabadka 30 senti u baahanahay iyo waxa waaye afkaas qabanaa camburka saasa u laabaya watula marka waa soo urura kashkash uu noqonaa insha Allah maaha kashkashan ugu talagalay laakiin kashkash iska rabaani uu noqonayaa ma sha Allah gacmahan ka bilaabeena hadeertan insha Allah ina ujeedin waxa wili maanta sida wax u tulayna idin tuso si robasiit oo macaan hada kaamirada aad fahmaysin ila soo socodsiya si fiican aan maaragtay aan u weyneynaya marka insha Allah waan tulayaa gacmihii waxaan ka bilaabay garbahan tulayaa markaan garbaha tolo oon dhameeyo oon maaragtay labada garbood aan tolo isku hagaajiyo markaas camburka intiis kala hadana aan wada tulaaya camburka waa iska cambur basiit dhinacyada laga tulaaya xabadka ani ahaanteed basiid oo leeyahay laakiin hadda u baahan tahay inaad samaysatid waa inaad maaragtay careful
u daawataa si tartiiba u daawataa si tartiiba u fahantaa hadduu ilaahay karaala noqdo wax dhib leh ma aha dhinacyada laga tolaya gacmaha garbaha la gelinaya dulac oo kale loo gelinaya gacmaha yaro oo maaragtay balbalaaran hadda insha Allah hadda waxaan tusayaa isagoo maaragtay iska qarbaatiile laakiin asoo classic oo si fiican u tolan design kan insha Allah waa idin soo gelin doonaa haddaan noolahay haddaan intaan afi masaamax marka dhinaca markaa ka tolo dhinaca kale way iska haysataa kashooytadan soo qaaday oo ku furfurayay harqaanka maradan dhex gelinaya calashaan dhinac kale inaan uga diyaarabaa oo maaragtay dhinacii aan tolo hoos aan geliyo dhinaca kaleetana maaragtay uu soo baxo si saani ay ku noqoto hadduu ilaahay karaal noqdo marka saa ujeediin baa ka kashooytada dhinaca ka geliyay dhinac kale ka soo saaraya waa haddana hurgufa calashaan saani suu ku noqdo saasuu iskula ekaanaya marada haddaad doontid waa tuli kartaa dhinacyada waa ka tuli kartaa haddaad doontidna sidiisaa ku haysan kartaa wax dhibee ma laha hadda waxaa bilaabeynaa cambuurka tolitaankiisii dhinacyadan ka tolaya markaan dhinacyada aan ka tolo oon dejiyo cambuurka uu maaragtay labada dhinac aan ka istaajiyo markaas haddana waxyaabaha kaleeto aan ku toltolaya laakiin marka hore waxaa fiican dharka markaad tolaysid garbaha inaad ka bilaawdid maadaama se cambuurkan garbo u lahayn garbihiisa mar horaaba soo tolnay way diyaarsan yihiin marka dhinacyada hadda iskaga qabanayna saa ujeedin dhinacyada laga tolaya dharka marka hore baatiga sidiisaba dhinacyada in laga tolo oo ku fiican yahay kadibna waxyaabaha kaleeta adaa ku dardaraysa cusbadaada xawaajiga gadaal ugu samaysta hadduu ilaahay subxaana watacaala uu karaal noqdo marka hadda dhinacyada ka tolaya labada dhinac markaa ka tolo cambuurka uu dego oo maaragtay xukumi karo ilaan dharka waxaa la rabaa inaad xukumi kartid markaad tolaysid wax kala yaacyaacay wax dhinac u socdo ama wax laysu keekeen dhinac walbaba kab ka galaya ma fiicna mar walba waxaa fiican dharka inuu degan yahay marka waa kaa dhinacaan ka tolay dhinaciyan hadda waxaan tolaa haddana kilkilaha tolaya ama shiirka qofba suu u yaqaano maradaasaan ku laabaya marka hore markaan laabo aan ku tolo oon ku laabo gudaha ugu laabo ayaan maaragtay haddana dhinaca kalean qabanaa sidaas si lamid ahan yeelaya maradan soo qaadanaya oo ku laabaya gudaha ku gelinaya waa diyaarinaya cashaan in maaragtay xabadka markaan diyaarinaya haddana kabkab iyo waxba oo iga gelgelin oo maaragtay wixii wax oo isku toosan uu noqdo ayaan maaragtay saas u yeelaya haddii kaleeta haddaa dhinac kale haddaa alaatuul qoorta xabadkaan soo laabaa rabaa waa halaaba cambuurka waa isku qasqasmayaan laakiin marka kilkilahana hadda ka tolaya insha Allah kadibaan aan usii baxayaa meelaha kale marka hore waa idin sheegay marka hore dhinacyada ka tolaysin marka xiga kilkilaha laga tolaya waa la laabaa haddii cambuur galba la-aan uu yahay siiba hadduu garba leeyahayna marka hore garbaha la iskaga tolaya kor garbaha koraa la iskaga tolaya kadibna gacanta lagu tolaa calaatuul kadibna dhinacyada laga tolaya haddaa dhexda wax kasii sameynaysid xabadka hoos dhexda kuli markaa haddana qeyba u tolaysaa marba qeybtii kuu sahlan oo si fiican aa u toli kartid aad tolaysaa kadib markaasaa aad isku diyaarinaysaa wax oo dhan oo waxay ku noqonayaan wixii wax fiican oo laisku aadiyey ku noqonayaan haddana gudaha marada aan ku tolsaa ujeedin gudaha usoo laabaya waxaa xaawilaya aad iyo aad u xaawilaya inaa idin tuso sida loo tolay laakiin inaan soo dhaweeyaa moodaya bahasho aad iyo aad aan usoo dhaweeyay kaamirada laakiin ma soo dhaweynin laakiin saa ujeediinba hadda meel dheer aniga xitaa oga jeedaa meel dheer marka sidaasaa gudaha lagu soo laabaya markii gudaha lagu soo laabo way ku diyaarsanaanaysaa bas yani wax kale ma u baahnid laakiin haddaad marka hore xabadka aad laabtid xabadka aad ka shaqaysid gacmihii hoos ama kilkilaha hoostooda waxaa waaye hadhow cariiri iyo waxaa imaanayo iyo wax aan isku hahabeysnayn kuuskuus iyo wax la tolay iyo wax kaa faktay iyo waxa yacni waxyaabo fiicnayna imaanaa gacanta waa laabay gacanti kalena waan laabay haddana xabadka ayaan laabayaa xabadkaas ka basiid gudaha ku laabayaa xabadka sida gacanta u laabayo kala gudaha ugu laabaa isagana waxaan laabayaa laba far oo kaleeto gudaha aan ku laabayaa saa ujeediin laba far aan gudaha ku laabayaa si maaragtay bahasha aan tolay maradii aan tolay uu la ekaado oo si sahlan maaragtay meeshii uu u geli karo ayaan rajeynayaa marka gudaha kusoo laabayaa
si isleega u laabaya oo maaragtay careful ee laba faro gudaha kusoo laabaya ma aha wax weyn ma aha inaad yareysid ma aha inaad weyneysid haddaad rabtid cambuur qurux badan oo isku dheeli tiran waa inaad si deganaan ah aad u tashaa waxyaabaha basiidka ee la leeyahay ayaa ugu dhib badan hadaba ku sheegay marka gudaha saas ugu soo laabo oon isku diyaariyo yani oon kilkilaha way laabayn hadda ogow xabadkan waa lasoo laabaya ماشي markii xabadka lasoo laabo diyaar uu noqonaya ma u baahnid waxyaabo kale inaad tutoshid extra inaad ku dirtirtid ma u baahnid ilaa meesha u dambeysa ku laabaysa wakaas wuxuu kugu noqonaa sharaf loo kugu laabmaya بعدين وديارسن yahay cambuurka deertan qalaas wax badan oo ku dhiman ma laha waka xabadka soo laabo gudahan ku laabe uu ku diyaarsan yahay kan kala laaba hadana insha Allah okay labada waa laabay hore gadaal baa soo laabay hadeertan waan adkeenaya waa isku dheeli tiraya maaragtay si cambuurka u dago ayaan hadana afka aan ka tulaya mahareeraha meesha xabadku ku soo aadaya ama dhabarku ku aadayaan si fiican aan ugu adkeenaya dunta mar walba inaa dharka nadiif u ahaado ayaa qurux badan hada kulli waa soo tolay hada geedkii xabadka u tolayaan soo qaaday biinkaas u jeedina dhex gelinaya bahashii aan sameeyay xabadka meeshii aan sameeyay aan laabayaan dhex gelinaya dulac oo kaleeto ayaan u gelinaya oo maaragtay si sahlan u galaya inkastoo uu adag yahay oo aan sameeyay meel aan ugu talagalay xarigaas aan sameeyay garbaha inuu maro kaliya ayaan birta ku gelinaya gudaha si tartiib ah oo isku dheeli tiran marka soo jeedino noqonaya waa soo saaraysa wax dhibaato ma walahan cambuurka waa basiid hada fahmaysid cambuurka waa basiid jiddan waa iska tolan kartaa dharkaaga gurigaaga ku marmaraysaa يعني ما aha wax maaragtay la fahmi waayo ma aha markaad cambuurkaaga aad tulatid kalsoonidaada hay waa qof kalena saas ugu tulaysaa taban kuuskaaga yara ka qaadane marka saas aan maaragtay birtaas dhex gali waan ka soo bixiyay si fiican aan ugu soo hagaajiyay hadana tan kala aan gelinaya laakiin kaamirada gadaasheeda ku gelinaya insha Allah because waqtiga igu dheeraanayo idinkan inaa igu malashiinaa ka cabsanayaaba igu caajistiin yani intaan labadaba ka gelinayo waqti dheer waaye marka insha Allah dhinac kalena waan gelinaya sidaas oo kale u soo gelinaya kadib labada geedaas ka hor keena aan soo wada geliyay kulligood waa wada geliyay labadaba waa soo geliyay waan isku dheelatiray waan iska yara cabiray 10 senti aan garbaha u reebay garbaha kalena 10 senti aan u reebay marka garbihi isku toolaya hadeertan isku diyaarinaya sidii maaragtay cambuurka uu qurux badnaan lahaa ayaan daba taaganahay sidoo cambuurka qurux badnaan lahaa ayaan daba taaganahay mar walba marka meel tuleysid dhinaca tuleysid inaa cabirtida ku fiican 10 senti 20 senti 5 senti inta u baahan tahay kaliya kala hartid inta kala narqanka aad marsid si uu kuugu hagaago waxa aad tuleysid sameynaysid marka insha Allah biidnillah karim labada isleekaysi isku fiiriyay labadaba isleegihiin arqanka jirrac ku siinaya يا سلام كليلها waxaan ku dhahay kuleelahaneeto waa dharkan waa dhar qaali ah oo magaalada markii lagu iibinayo lacag badan la siiya harqaanka ay geysatid sidaas iyagu samee aad tiraadina akid lacag badan oo ka qaadanaya lacag inta qiimihiisa bay ahayn baba baatiga inta lagu soo gaday jibaarkeeda laga qaadanaya soo because qof dhan fikradiisa qaadanaysa marka sadarteed iska xifdisida loo sameeynayo iska baro waa wax basiid ah oo ka cambuurka ay diyaarsan yahay hoosan kalaaba hadartan sharraq harqanka marinaya adana harqankan ku sitabida waa ku adkeena inuusan furfurmin wax waa baati talaabada hadii la qaado inuu jagaga dhaha laga yaabaa marka insha Allah biidnillah alkarim sidaas basiidka ah loo sameeyaa dharka wax walbana waa kalsoonidaada hadaad isku kalsoon tahay wax walba sameynaysaa cambuur baati ilaa iyo cambuur aroosad gaaraysaa cibaayad wax kasto
wax maaragtay complicated ma yaalo. hal senti aad gudaha ku laabaysaa ujeedid hal senti adii 3 senti hoos looga baahan yahay dharka markaa gogoonaysa iska ilaali. hal senti oo la laabay, hal senti oo soo laabmay, hal senti oo lagu kortolay. 3 senti off inaad siisid waa hoos dharka markaa cabiraysa cabirka uga tagtid calashaan si maaragtay dhirka oo kaaga gaaban hadhow bartabaati waa kida waaba gaabanaaba. laakiin haddana waxaa fiican maaragtay naska adkaysid xoogaa oo aadan ilaawina fiican يعني inaad u baratid qaacida inaad u baratid fiican يعني qaacida waxa la wax kuugu salaysan waxa aad sameeyeen qaacida waxa la wax kuugu salaysan waxa aad sameynaysid marka hadana waa ku adkeena waan ku wareejiyo hoos in waa soo tale hadana waan ku adkeenaya si uusan u furfurmin oo maaragtay baatigi talaabada u qaadi kartid hadii carar noqotan aad ku fikan kartid. marka waa diyaarinayaa saas u jeedina loo tolaa dharka tulitaankiisa waxa maartay wax adeeg ma aha oo lagu mashquulo oo maskaxda qabto waxa dhan kalsooni u baahan tahay. kalsoonida sadahaysid waa dardarayaan ku dhawa waxa kaleetane maradiya kaamirada kharisay dib ma lahase wuxuu dhan waa wada dhameeyay waan wada talay dhinacaas hoos sidaas u laabmay horta u jeediin marada waa la nadiifiyaa cleanina loo sameeyaa dunta zaa'idka oo dhan waa laga baxbaxshaa. allahumma salli ala sayyidina maxamed. dhar nadiif ah si uu ku soo baxo oo maaragtay qurux badan hoos sidaas u laabmay isku leekaaday. xabadku waa kaas soo noqday gacmihii sidaas ay noqdeen. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxa lagu noogay ma aha wax lagu dhibtooday ma aha 2 hours oo waqti ah ka galbis. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. wixii maanta dhan aan ku soo noogeynay sidaas uu noqday ما شاء الله cambur yar oo macaan ka soo baxay tafahana aan ka qabanaynin oo qatar ah wanigoo dhaxal hooyo idin leh ما شاء الله. وبهذه دحل هو إذن لي قلبك إذن كسلامينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إلى وين لايك شيري كومنت سبسكرايب قلبك إذن كجعلنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.